subax wanaagsan qodobada wararka idaacadda dalsan saaka idiin haysana waxaa ugu waaweyn faahfaahinno dheeraada oo kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray magaalada muqdisho mas-uuliyiin ka tirsan puntland oo laga helay fayruska corona iyo tirada dadka uu ku dhacay deegaanada puntland oo sii kordhay ra-iisul wasaare kheyre oo faray wasaaradda maaliyadda bixinta kharashka loogu talagalay ka hortaga fatahaada webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne wasaaradda caafimaadka soomaaliya oo mar kale ku baaqday in la joogteeyo talooyinka caafimaad ee lagu xakameynayo corona iyo taliska booliiska soomaaliya oo uga digay ganacsatada iyo shacabka inay lacagahooda ay geliyaan qaadka iyada oo loo mamnuucay arrimo la xiriira cudurka covid-19 soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta. mar kale subax wanaagsan meel kastoo aad joogtaan waa tobanka bisha shanaad ee May 2020 kusoo dhawaada warkii subaxnimo faahfaahsan. ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xalay waxa ay ku dagaalameen xaafada ka tirsan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir sida idaacadda Dalsan ay markaasi ay u sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada iyo dad goobjoogayaala dagaalka ayaa waxa uu dhex maray ciidamo ka wada tirsan kuwa booliiska iyo sidoo kale militariga dowladda federaalka ee Soomaaliya. dagaalku waxa uu yimid kadib markii sida la sheegay ciidamo booliis oo howlgal ugu jiray baaritaan la xiriiray hubiyaal lagu weeraray xarunta xalane ee magaalada Muqdisho la sheegay in laga soo tuuray nawaaxiga xaafadda Kaawagoday iyo Trabush ay markaasi howlgal halkaasi ay ka sameynayeen ay wadada iskaga hor yimaadeen ciidamo kale oo militari ah sidaasina dagaalku uu ku bilowday. ciidamada militariga ayaa waxaa la sheegay ciidamada booliiska in ku dhawaad saacad ay ku dagaalamayeen isgoyska Trabush iyadoo oo markii dambena dagaalku uu sii xoogaystay isla markaana uu gaaray xaafada ka tirsan isgoyska Kaawagoday dhinaca degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. dagaalka waxaa la sheegay in ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof oo u badan dad shacab ah isla markaana ay markaasi dhaawacyo kale ay jiraan. dagaalka ayaa waxaa la sheegay in ciidamada militariga ee markaasi la dagaalamaya ciidamada booliiska uu markaasi hogaaminayay sarkaal ka tirsan militariga oo lagu magacaabo Bilaa Afdheere isla markaana ka tirsan ciidamada militariga. dagaalka ayaa waxaa markii dambe kusoo baxay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo la sheegay inuu ku jiro gudoomiyaha gobolka Hanaduqa magaalada Muqdisho iyo saraakiil sare oo ka tirsan booliiska uu ku jiro taliyaha ciidanka. markii dambena dagaalka ayaa joogsaday. ciidamada ka wada tirsan dowladda federaalka gaar ahaan militariga iyo booliiska ayaa inta badan waxa ay ku dagaalamaan xaafadaha ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo dagaalada intooda badanna uu khasaaro uu ka dhasho. toddobaadkii hore ayay ahayd markii ciidamo ka wada tirsan militariga iyo sidoo kale ciidamada booliiska ay ku dagaalameen bar control oo ku taala isgoyska korontada degmada Wadajir ee gobolka Banaadir halkaasi oo askari ka tirsan ciidamada booliiska uu ku geeriyooday dad kalena ay dhaawacyo ay ka soo gaareen. ilaa iyo hadda hay-adaha amnigu wax faahfaahin ah kama aysan bixin dagaalkii ugu dambeeyay ee ciidamada militariga iyo booliiska xalay ku dhex maray xaafado ka tirsan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland ayaa laga helay fayruska corona
wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee puntland oo xalay warbaahinta kula hadlay magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland ayaa waxa uu sheegay in mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland laga helay fayruska corona. dad badan oo markaasi gaaraya 17 qof ayuu sheegay in markaasi laga helay kadib baaritaano lagu sameeyey fayruska corona. sidoo kale wasiir cabdinaasir ayaa waxa uu carabka uu ku dhuftay dadka laga helay cudurka covid-19 uu ku jiro hal wasiir iyo sidoo kale xildhibaan ka tirsan baarlamaanka puntland islamarkaana hal qof uu u geeriyooday. waxaa tirada ama gobolada puntland ama magaalooyinka laga helay uu ku kala sheegay magaalada boosaaso oo 5 qof laga helay, qardho oo 5 ah, gobolka ay puntland u taqaano waaciye oo laga helay 3, garowe oo markaasi 2 ah, iyo magaalada gaalkacyo oo iyana 2 qof ah ayaa laga soo aruuriyey sambalkii. waxaa laga helay oo positive noqotay 17 qof. 17ka qof 15 waa rag ama labana waa dumar. da'doodu waxay u dhaxaysaa 20 ilaa 65 sano. gobolada ay kala joogaan, gobolka bari boosaaso 5 qof ayaa joogta. gobolka karkaar magaalooyinka qardho iyo waaciye, qardho waxaa jooga 5 qof, waaciyena waxaa jooga 3 qof. waaciye 3 qof oo positive ka noqotay intaan resultigu maanta soo bixin mid ka mid ah ayaa dhintay. allahu naxariisto. waa uga tacsiyeynaa ehelkii iyo asxaabtii, isagana ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannatul firdaws ka waraabiyo. garowe waxaa jooga dadka positive-ka maanta la baaray 2 qof. gaalkacyo gobolka mudug 2 qof. tirada 17 ah ee positive-ka maanta la baaray waxaa ku jira hal wasiir oo ka tirsan golaha xukuumadda puntland, xubin ka tirsan iyo xubin ka tirsan golaha wakiilada puntland. tirada guud xanuunka covid-19 ee puntland ee la xaqiijiyey ee la baaray ee laabka laga saaray waxay sidaa ku noqonaysaa 76 qof. dhimashaduna waxay noqonaysaa qofka maanta markii lagu daro 3 qof. wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee maamulka puntland ayuu ka ahaa. dhinaca kalena wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ayaa dadka ugu baaqday in ay joogteeyaan xakameynta fayruska corona iyaga oo qaadanaya talooyinka caafimaad ee loogu talagalay in looga hortago fayruskan. sida caadada noo ahayd inaan isku waanino oon isku dhiirigelino inaan cudurka ka hortagno, in ma aragtay meelaha ciriiriga aanan la tegin, in afka la daboosho marka baabuurta la raacayo ama bannaanka loo baxayo ama dad la dhex fariisanayo, in la kala dheeraado, in gacmaha saabuun iyo alcohol iyo wax allaala wixii qofka heli karo isaga nadiifiyo ilaa iyo 20 second iyo ka badan, in ma aragtay qofka gurigiisa uu joogo uusan bixin haddii aysan ahayn wax muhiim ah oo ku qasbayo qofka inuu baxo, in la dhageysto calaamadaha cudurka iyo sida lagu kala qaado iyo sida loo xakameyn lahaa, in laga ilaaliyo cudurka dadka waayeelka ah ama dadka qaba cudurrada chronic diseaseska loo yaqaan cudurrada raaga, sababtoo waa iyaga kuwa u nugul jirrada oo hadhow markii ay ku dhacdo laga yaabo inay yacni xaalad adag ay galaan, in ma aragtay lagu dadaalo in wax walba oo la sameyn karo oo lagu xakameyn karo cudurka siday takhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka iyo dadka u leh expertiska ay noo sheegeen inaan dhageysano. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa faray wasiirka maaliyadda in sida ugu dhaqsiyaha badan uu bixiyo kharashaadka loogu talagalay in lagu xakameeyo fatahaadda webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka xasan cali kheyre ayaa warbixin waxa uu ka dhageystay wasiirka maaliyadda iyo sidoo kale guddiyada u xilsaaran ka hortaga fatahaadda webiga shabeelle iyo jubba
ee maradalka islamarkaana meelaha qaarkood fatahaad ka sameeyey. guddiga gurmadka ee loogu talagalay dadka markaasi u saameeyey fatahaadda iyo daadadka ayaa warbixinta uu ka dhageystay waxaa markaasi ugu muhiimsanayd in ra-iisul wasaaruhu uu faray wasiirka maaliyadda in sida ugu dhaqsiyaha badan wasaaradda maaliyadda looga baahan yahay bixinta kharashaadka loogu talagalay in markaasi looga hortago fatahaadda uu sameeyo webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne oo dad badan ay ku barakaceen. ra-iisul wasaaraha oo warbixin faahfaahsan ka dhageystay guddi hoosaadka ka hortaga fatahaadda ayaa waxaa dhammaan kaga qeyb galay ama looga hadlayay arrimaha la xidhiidha bulshada iyo sidoo kale baaqyada xoogan ee soo taray ee ku aadan in laga hortago fatahaad uu geysto webiga magaalada beledweyne oo markaasi khasaare hor la geysata sida dhacday kal horeba. ra-iisul wasaaruhu waxa uu markaasi guddiga u sheegay in loo baahan yahay in loo diyaar garoobo in la daabulo agab dheeraad ah oo loogu talagalay in biyaha loogu mooso magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan. taliska booliiska ee soomaaliya ayaa waxa ay digniin u direen ganacsatada iyo dadka shacabka ah iyagoo uga digay in kharashaadkooda ama lacagahooda ay geliyaan qaadka oo loo mamnuucay arrimo la xiriira cudurka covid-19. afhayeenka ciidanka booliiska ee soomaaliya oo la hadlayay warbaahinta shalay kadib markii qaad lasoo qabtay dhinaca xeebta liido doomana lagu siday ayaa waxa uu sheegay in cudurka covid-19 ka hortagiisa darteed loo joojiyay jaadka. ha yeeshee waxa uu sheegay in dadku ay ka digtoonaadaan gaar ahaana ganacsatada iyo dadka kaleba inay lacagahooda ay geliyaan qaadka. sidiisaba uu u wanaagsanayn jiritaanka bulshada ayay ciidanku soo qabteen qaadkaas. waxaanan ammaan iyo bogaadin u jeedinaynaa ciidanka laanta ilaalinta canshuuraha iyo ciidanka laanta ilaalinta xeebaha oo iyagu howlgalkaas ku soo qabtay doontaas waday jaadkaa sharci darrada ah. intaa kadib waxay gudanayeen waajibaadka ilaalinta nafta iyo maalka muwaadiniinta oo ah waajibaadka guud ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ilaashanayo. ciidanka ilaalinta xeebaha oo u xil saaran ilaalinta iyo badbaadinta muwaadiniinta ku harqanaya xeebaha isla markaana badqabka iyo nabadda xeebaha dalka Soomaaliyeed. ugu dambeyn waxaan farayaa ummadda Soomaaliyeed in naftooda iyo maalkooda ay ka ilaashadaan oo aysan naftooda iyo maalkooda iska gelin qaadkan sharci darrada ah isla markaasna qayb weyn ka qaatay faafitaanka cudurka coronavirus.